Pep Guardiola oo digniin culus u diray Arsenal kadib guuldaradii Aston Villa. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in kooxdiisu weli qayb ka tahay tartanka Premier League. Inkasta oo ay hadda 6 dhibcood ka dambeeyaan hogaamiyaasha Arsenal, City waxay hal eber guuldaro kala kulantay Aston Villa Axadii, taas oo soo afjirtay 9 kulan oo xiriir ah oo aan laga badin tartamada oo dhan. Arsenal ayaa ka adkaatay Crystal Palace, taas oo sare u qaaday hogaankooda miiska kala sareynta. Natiijada ayaa City gelisay booska shanaad, iyagoo ka dambeeya Arsenal, Bournemouth, Tottenham iyo Sunderland. hase yeeshee Guardiola oo City ku hogaamiyay 6 horyaal 9 sano gudahood ayaa sheegay inaysan jirin wax argagax ah. Waan isku dayi doonaa inaan farqiga yareeno, ayuu yiri Guardiola. Arsenal sanadii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwo aad u adag. Waxaan diiradda saarayaa sida aan u hagaajin lahaa kooxahan oo aan ugu dhawaan lahaa. Khibradeyda haddii aan ka hadlo xil ciyaareedku waa mid dheer. Waxaa jira kooxo badan oo naga sareeya. Bournemouth si fiican ayay u ciyaarayaan, sidoo kalena kuwa kale ayaa jira. Anagana waxaan isku dayi doonaa inaan ciyaarno ciyaarteena. Inkasta oo ay guuldaro ka soo gaartay kooxda Villa Park ku ciyaarta, City weli waxay aaminsan tahay in xil ciyaareedku isbedeli karo marka waqtigu isbedelo, halka in ka badan kala bar xil ciyaareedka ay harsan tahay. Guardiola wuxuu rumaysan yahay in joogteynta iyo horumarinta ciyaartoyda ay muhiim tahay. Tartanka horyaalka Premier League ayaa hadda u muuqda mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo kooxo badan ay si xoog leh ku bilowdeen xil ciyaareedkan. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeeni bandhiga ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.